salaamullaahi calaykum daawadayaal idin lahaantiinba ku soo dhowaada warkiyaga labaad ee telefishinka caalamiga SBTV xaruntiisa dalka Mareykanka. Qodobada warkiyaga kuwa ugu xiisaha badan waxaa ka mid ah ra'iisul wasaarihii Russia iyo dhammaan golihiisii wasiirada oo is casilay duqeyn ay dad badani ku laadeen oo ka dhacay dalka Suuriya, xasuusta dagaalkii Biafra ee Nigeria oo dad badani ay doorbidayaan in la iloobo, Sacuudiga oo xiray dad si sharci darro ah ugu ganacsanayay dhoofinta haramcadka, xidigii Turkiga ee hadda buugaagta iibiya markii ay isku dhaceen Erdogan. Qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warkiyaga telefishinka caalamiga SBTV xaruntiisa dalka Mareykanka. goordhow u diyaar garow isagii oo faahfaahsan. isku soo noqod wacan waa maalinimo Khamiis ah, taariikhdu milaadiga ay ku aastaysan tahay 16 bisha Janaayo sanadka 2020. kuna soo dhowaada warkii oo faahfaahsan. aynu ku bilownay ra'iisul wasaarihii Russia iyo dhammaan golihiisii wasiirada oo is casilay. ra'iisul wasaaraha Russia Dmitry Medvedev ayaa ku dhawaaqay in dowladda oo dhammi ay is-cashishay. go'aankan ayaa noqday hadal yaab leh oo la sii daayay wax yaroon kadib markii madaxweyne Vladimir Putin uu jeediyay shirkiisa. madaxweyne Vladimir Putin ayaa aqbalay is-casilaadooda, waxa uuna uga mahadceliyay wasiirada shaqada adag. waxa uu ku codsaday inay sii shaqeeyaan ilaa mid cusub laga soo dhisi doono. go'aanka is-casilaada ah ayaa loo malaynayaa in uu yimi kadib markii madaxweyne Vladimir Putin uu soo jeediyay in wax laga bedelo dastuurka dalka Russia si loo xadido madaxweynaha in uu 2 waqti xafiiskiisa yimaado. qorshaha Putin ayaa in aqalka hoose ee baarlamaanka la siin doono awood ay u magacaabaan ra'iisul wasaaraha iyo golaha intiisa kale, iyada oo laga soo horjeedo kaliya in la ogolaado musharaxnimadooda sida ay hadda tahay. Medvedev waxa uu noqday ra'iisul wasaare 2012 kadib markii uu 4 sano madaxweyne ahaa. hadda waxa uu madax u yahay xisbiga talada haya ee United Russia. dhinaca kale, duqeyn ay dad badani ku dhinteen oo ka dhacday Suuriya. ugu yaraan 18 ruux oo shacab ayaa dhintay kadib markii la duqeeyay suuq iyo aag warshadeed oo ku yaala gobolka Idlib ee dalka Suuriya, gaar ahaan qayb ay haystaan kooxaha fallaagada. kooxaha indheeya xaaladda Suuriya ayaa sheegay in weerarka ay si wadajir ah u fuliyeen diyaaradaha qumaatiga u duula ee nooca dagaalka ee dalalka Russia iyo sidoo kale Suuriya. weerarkan ayaa imaanaya iyadoo ay burburtay xabad joojin ay horaantii bishan ku dhawaaqeen dowladaha Russia iyo sidoo kale Turkiga. magaalada Idlib ayaa caasimad u ah gobolka waqooyi galbeed ee dalka Suuriya oo isla magacani loo yaqaano, waana goobta ay ugu xoogan yihiin fallaagooyinka ku kacsan dowladda madaxweyne Bashar al-Assad. weli dowladda Russia iyo Suuriya midna ma uusan ka hadlin weerarka ugu dambeeyay oo ay dad badani shacab ah ku waxyeeloobeen. dhinaca kale, xusuusta dagaalkii Biafra ee Nigeria oo dad badan ay doorbidayaan in la iloobo. geerida in ka badan 1 milyan oo qof oo ku dhintay dagaalkii sokeeye ee Nigeria oo dhammaaday 50 sano ka hor waxay cambaar ama barmadow ku tahay taariikhda dalkaasi. marka si guud looga hadlayo dadka reer Nigeria, dagaalkaasi oo ka qarxay abuurista dowladii Biafra waxay u arkaan nasiib darro soo martay wadanka oo ku habboon in la iska iloobo. laakiin dadka ka soo jeeda qowmiyadda Igbo oo u dagaalamayay in ay maamulka la wareegaan waxa ay dhacdadaasi u tahay mid lagu aqoonsaday sanadii 1967 markii ay dhaceen 2 afgambi iyo weliba qalalaasa sababay in qiyaastii 1 milyan oo qowmiyadda Igbo ay ku laabtaan koonfur bari ee dalka Nigeria. jamhuuriyadda Biafra waxay ku dhawaaqday gooni u goosad iyadoo uu hogaaminayay 33 jir militariga ka tirsanaa oo lagu magacaabi jiray Emagwe Odumegwu Ojukwu. dowladda Nigeria ayaa durbaba ku dhawaaqday dagaal
kadib 30 bilood oo uu dagaalkaasi socday. Biafra waa ay isdhiibtay 15kii bishii January sanadkii 1970 ayuu dagaalkii u istaagay si rasmi ah. go-aankii ay dowladda soo saartay ee ahaa in aysan jirin cid dagaalkaasi ku guuldareysatay ama ku guuleysatay ayaa laga yaabaa in uu dad badan ilowsiiyey xasuusta musiibadaasi, laakiin dadka reer Nigeria ee asal ahaan ka soo jeeda qowmiyadda Igbo ayaa ku soo koray iyaga oo sheekooyinka noocaasi ah ka dhageysanaya dadkii noolaa xilligii uu dagaalka socday. 3 ka mid ah dadkii ka soo qayb qaatay ayaa jiilalka xiga la wadaagay xasuustooda dagaalka. waxaa ka mid ahaa Christopher Ejike Ago oo ahaa askari. ninkan xilliga uu dagaalka qarxayay waxa uu markaa uu ka qalinjibiyey iskuul oo uu ka baranayay naxwaha Ingiriiska. waxa uu bilaabay tababar dhinaca caafimaadka xoolaha oo uu ku qaadanayay jaamacadda Nigeria ee magaceeda loo soo gaabiyay UNN si uu gacan sare ugu noqdo takhtar xoolaha daweyn jiray. in badan ardaydii uu yaqaanay waxa ay ku biireen dagaalka. isaga laftiisa waxa uu ka mid noqday ciidamada xukuumadda Biafra kuwaasi oo uu jaajuus u noqday. isagoo hadlaya waxa uu yiri ciidamada dowladda Nigeria ee nagala dagaalamayay waxay ahaayeen askar tababar fiican leh. annaga 2 maalmood ayaa tababarna loo sameeyey, dagaalka ayaana nagula dhex tuuray ayuu yiri Christopher Eko. waxaan u maleynayay in aanu nahay dad inta sarcaad wax ku sameynaya ayuu hadalkiisa ku daray Mrs. Ago oo haatan ah 76 jir. dhanka kale dowladda Sacuudiga oo xirtay dad si sharci darro ah ugu ganacsanayay dhoofinta haramcadka. saraakiisha ammaanka dalka Saudi Arabia ayaa sheegay inay xireen tiro badani oo lagu eedeeyay inay xayawaanka haramcadka ay si sharci darro ah uga ganacsanayeen isla markaana ay u dhoofinayeen dalal kale. dadkan ayaa lagu eedeeyay in ay wadeen ka ganacsiga xayawaanka duurjooga gaar ahaan haramcadka. warbaahinta gudaha dalka Sacuudiga ayaa ku warantay in raggani safrinaya haramcadka ay ka soo tallaabeen xadka uu dalkaasi u la wadaago Yemen. saraakiisha ammaanka waxa ay qabteen raggan xilli ay jawaano ku dhex qarinayeen. kadib waxa ay saraakiisha fureen jawaanada waxayna ku arkeen xayawaanka haramcadka. qaar ka mid ah xayawaanada duurjoogta ayaa laga safriyaa bariga Afrika si loogu iibiyo dalal ku yaala khaliijka halkaasi oo lagu xanaanaysto. dadka u dooda ilaalinta duurjoogta ayaa sheegay in badan oo ka mid ah xayawaanada duurjoogta ee la safrinayo ay dhex ku dhintaan, isla markaana waxa ay ka digeen in ganacsigan sharci darrada ah uu halis ku hayo haramcadka ku nool dalalka sida Soomaaliya, Itoobiya iyo wadamo kale oo qaaradda Midowga Afrika ka mid ah. dhinaca kale xidigii Turkiga ahaa ee hadda bugaagta iibiyo markii ay isku dhaceen madaxweyne Erdogan. Hakan Soko waa goolalihii ugu wanaagsanaa abid soo mara xulka qaranka Turkiga. waxa uu sidoo kale ahaa mid ka mid ah goolalayaashii loogu doonista badnaa qaaradda Yurub. haddaba sidee buu rugcadaagan ugu dambeyntii ku noqday nin buugaagta iibiya oo sidoo kale taksiila ka ah waddanka Mareykanka isaga oo weliba dibajoog ka ah waddankiisa Turkiga, sida lagu sheegay waraysi uu siiyey wargeyska ka soo baxa dalka Jarmalka ee lagu magacaabo Wade Am Sotag. ciyaartooygani hore ee 48 jirka waxa ay noloshiisu isbedel qayrul caadi ah gashay tan iyo markii uu ciyaaryahankan ka fariistay sanadii 2008. waxa uu sheegay in khilaaf ka soo kala dhexgalay isaga iyo madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu horseeday hanjabaadyo loogu jeediyay in la dilayo, sidoo kalena loo jeediyay eedeymo been abuur ah lagana hor istaagay in uu dhaqaalihiisa isticmaalo. waa sida uu isagu sheegay, waxa ii haray ma jiro. Erdogan ayaa wax walba iga qaatay xuquuqdii aan u lahaa in aan bulshada ku dhex jiro, xurriyadeedii hadalka iyo xaqii aan u lahaa shaqooyinka ayuu yiri weeraryahankan. Soko waxa uu dhaliyay 51 gool 112 kulan oo uu saftay xulkiisa Turkiga intii u dhaxaysay sanadii 1992 ilaa 2007. waxa uu ka mid ahaa xulkii qaranka Turkiga ee kaalinta 3aad ku dhameystay koobkii adduunka sanadii 2002. ciyaartooygani horey uga tirsanaa jiray kooxda Blackburn
waxa uu xirfadiisa ciyaaraha inta badan ku qaatay kooxda Turkiga ee Galatasaray waana ciyaaryahankii ugu goolasha badnaa ee abid soo mara horyaalka Super League ee dalka Turkiga ugu sareeya kadib markii uu ka fariistay ciyaaraha kubadda cagta waxa uu ku biiray siyaasadda sanadii 2011 Sugar waxa uu ku guuleystay kursiga baarlamaanka Turkiga isagoo xubinka xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee madaxweyne Erdogan laakiin waxa uu sidoo kale xiriir la lahaa Fethullah Gulen oo ah wadaad reer Turki oo ka soo horjeeda Erdogan madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan waxa uu wadaadkaasi ku eedeeyay isku day afgambi oo u dhiig ku daatay oo Turkiga ka dhacay sanadii 2016 Sukur oo waqtigaasi ku noolaa Mareykanka ayaa lagu soo warramay in uu ka soo horjeestay afgambiga laakiin sanadkii 2017 ay warbaahinta dawladda Turkiga ku qeexday in uu yahay nin baxsada oo xubinka ah ururka Fethullah oo ay argagixiso u aqoonsan tahay xukuumadda Ankara warka ka soo baxay warbaahinta dawladda ayaa lagu sheegay in ciyaartooygani uu ku nool yahay guri 3 milyan oo dollar uuna leeyahay meherad qaxwada lagu cabo oo ku taala xaafadda lagu magacaabo Palo Alto taasi oo ah xaafadda ugu qaalisan magaalada San Francisco laakiin Zucker waxa uu wargeyska u sheegay arrin midaasi ka duwan waxaan u guuray Mareykanka markii horena waxaan gobolka California ku lahaan jiray meherad lagu qaxweeyo balse markii ay dad qalaada ku soo bateen maqaayadda ayaan isaga tagay hadda waxaan u shaqeeyaa gawaarida shirkadda taksiga ah ee lagu magacaabo Uber buugaagna waan iibiyaa ayuu ku yiri wargeyska waad ugu dambeyntii khasaare ka dhashay dagaal dhex maray ciidamada iyo sirdoonka Suudaan 5 qof ayaa ku dhintay 2 askari ayaa la dilay kadib markii ciidamada Suudaan ay maanta weerareen wakiilo ka tirsan sirdoonka laga boqo ee dalkaasi oo gadooday talaadadii rasaas culus ayaa laga maqlayay qaar ka mid ah saldhigyada hay-adaha sirdoonka NIS ee Khartoum kadib markii wakiilada hay-adaasi ay diideen qorshe howlgal ah oo ay soo jeediyeen mas'uuliyiin cusub ee dalkaasi xubnaha NIS ayaa hormuud u ahaa weerarkii lagu qaaday dibadbaxayaasha intii uu socday kacdoonkii lagu riday madaxweyne Umar Hassan al-Bashir bishii Abriil sanadii 2019 goor dambe oo talaadadii ahayd ciidamada militariga iyo kuwa sida militariga u tababaran ee magacooda loo soo gaabiyo RSF ayaa ku xoomay xarumaha sirdoonka kadib markii rasaas laga maqlay waxaan go'aansaday in aan weerarno xarumaha si loo soo gabagabeeyo kacdoonkan waxaan hadda la wareegnay saldhigyada waxaa sidaasi wariyaasha u sheegay madaxa shaqaalaha madaxtooyada Suudaan General Osman Mohamed Al Hassan waxaa naga dhintay 2 askari waxaa naga dhaawacmay 4 kale oo ay ku jiraan 2 sargaal ayuu hadalkii ku daray dhinaca kale dhaqaatiir ayaa sheegay in 3 qof oo shacab ah oo dhamaantood isku qoys ah ay sidoo kale ku dhinteen rasaas la isku weedaarsaday meel u dhow saldhigga NIS ee koonfurta Khartoum wiil dhalinyaro ah ayaa sidoo kale la dhaawacay afhayeenka dawladda Faisal Mohamed Saleh ayaa sheegay in wakiilada NIS ay gadoodeen kadib markii ay diideen lacagta lagu qoondeeyay in ay howlgab uga noqdaan shaqada saaxiibada aynu jecelnahay waa inaga inta warkii aad ka daawaneyseen telefishinka caalamiga SBTV xaruntiisa dalka Mareykanka war soo jeediyay waa anigo Jamuni tan iyo warkan warkiisa xiga waxa idinkaga tagaynaa nabadgelyo.